بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدح tobankii June 2021 markale waxaan joognaa hogaanka baarista dambiyada CID. maalinkii taariikhdu ahayd 8 bishii June 2021 ayaa hogaanka baarista dambiyada CID ay ciidanka booliska Soomaaliyeed uu gacanta ku soo dhigay 720 qof oo dhamaantood ahaa muwaadiniin Soomaaliyeed. 720 kaas qof ayaa isugu jiray 22 qof oo dumar waliba dhalinyaro u badan, 3 qof oo rag ah iyo 2 qof oo howlwadeena ah isla markaana doonayay in dadkaas ay dhoofiyaan dalka dibadiisa sifo sharci darro ah oo aan ilaa hadda la ogeyn sababta ay ula jeedeen dadkaas ay dhoofiyaan. dhammaan dadkaas ahaa muwaadiniinta dhalinta Soomaaliyeed ah waxaa loo waday dalka dibadiisa iyadoosan iyaga ruuxoodu wax fakara ka haysanin meesha ay u socdaan aysan jirin cid la og marka laga reebo dadkii waday. qaarkoodna xitaa waalidiintoodu aysan ogeyn isla markaana ay u ahaayeen awlaad wax u barata oo u diiwaan gashan muwaadiniin caadi ah. waxaa jira daraasado laga diyaariyay arrimaha noocan ah oo hay'adaha iskaashiga la leh ciidanka booliska Soomaaliyeed dhanka la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed wax fakara aan ka haysanin dhacdooyinka noocan adduunka oo dhan waxaa ka jira hay'ado caalami ah oo ugu horeyso hay'adda United Nations Office of Drug and Crime UNODC ay ka mid tahay tababarada gacanta marka saasiisa ciidanka booliska Soomaaliyeed marka laga eego muhaajiriinta iyo la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waxba galabsan. Sub-Sahara Africa oo ah qaybta aan adduunka Soomaaliya ay ka mid tahay 26 dal 2018 waxaa laga diiwaan geliyay 26 kaas dal ee Sub-Sahara Africa cadad kiisas ah oo aad u fara badan. kiisaskaas ayaa daraasadaha aad ka dheehan kartaan bogagga website-yada caalamka ee lagu diiwaan geliyo ay dhigayaan 14% ka mid ah dadka tahriibaha bariga Afrika ka tahriibay yihiin rag, 7% ay yihiin dumar, saasoo kale 7% ay yihiin wiilal dhalinyaro ah, 32% ay yihiin gabdho da'yar ah oo caalamka intiisa kale loo wada tahriibay dhamaantood. waxaan u baahanahay arrinta ummadda Soomaaliyeed ay fariintan qaataan oo ay ku baraarugsanaadaan oo ay diyaar u ahaadaan lana socdaan siiba khaasatan waalidiinta Soomaaliyeed inay ka warhayaan caruurtooda halka loo wado siday u socdaan la saaxiibaan la dhaqmaan ogaadaanna dhaqdhaqaaqay habdhaqanka caruurtooda ay ku socdaan maxaa yeelay dhammaan kiisaska human trafficking la xiriira ee hogaanka baarista dambiyada CID du gacanta ku dhigay waxaa daba socda waalidiin aan wax war ah iyo wacaal ah caruurtooda u haynin meesha ay u socdaan iyo meesha ka yimaadeen iyo waxay dabacsanayeen. halka markaan uga baxo dhanka kale xalay 12kii bishii June 2021 shalay xalay fiidkii abaara 1:20 ayaa lagu arkay meydka qof dumar ah xaafadda Galmudug ee ka tirsan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. marxuumadaas oo lagu magacaabi jiray Caasha Maxamed Cabdicasiis ina hooyo raaso Siraad Cusmaan 20 jir ahayd ku dhalatay Qalaafe isla markaana deganeed degmada Garas Baalley taasoo la dilay isla markaana meydkeeda laga helay xaafadaas ayaa lagu soo wargeliyay ciidanka booliska Soomaaliyeed. arrintaas dhacdadaas dilka Caasho waa arrin aad u fool xun qoyskii eheladii iyo qaraabadii ay ka dhimatay Caashana waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay iyadan naxariistii janno ha siiyo qoyskeedii iyo qaraabadii dadka ay ka baxdana samir iimaan ha siiyo. hogaanka baarista dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa socda baaris arrinta lagu kurgalayo walow eedeysanihii ilaa hadda aan gacanta lagu haynin laakiin ay socdaan baaris iyo dabagallo la xiriira arrintaas. sida horeba dhowr jeer u dhacday ciidanka booliska Soomaaliyeed falalka noocaas oo kale ah dabagallada iyo la dagaalanka ka hortagga iyo ka dabatagga falalka noocaas markay dhacaan dhowr jeer kala duwan waxaan u soo qabanay eedeysanayaashii falka ku lug lahaa. dhowr jeer hore waxaad ogtihiin in kiisas xamar ka dhacay oo eedeysanayaasha ay baxsadeen gobolada laga soo qabtay. kiiskii u dambeeyay ee gabadha degmada Wardhiigley ninkeedu uu ku dilay saasoo kale gacanta lagu soo dhigay waa la wadaagnay bulshada Soomaaliyeed. saanoo kale marxuumad Caasho waxaan rajaynaynaa eedeysanaha falka ku eedeysan oo kiiskaas geystay in ilaahay idinkii gacanta lagu soo dhigi doono isna cadaalad la waafajin doono. waa maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.